نعم جعل أنا مري جعل قفتم وجعلاني قفتم بقلبي يتمسيناي أنا sida daawada muuqaalka hordhiciisa ka soo aragtay waa Amish gabadha la leeyahay oo dalkaasi Nairobi ku nool ayadii jaceylkeeda xiriirkeeda oo khilaaf soo dhex galay barta TikTok ay ku leedahay ay ku dhex oysay live ayadoo ku jirto si aan kula wadaago fadlan nagu soo biiro asxaabteena ka mid noqo adigoo janaalka subscribe dhahanaya gambaleelkana u furanayo muuqaalkana like la dhacayo wixii fikirkaaga commentiga noola wadaag Amish oo live TikTok ku dhex oysay maadaama qofkii xiriirkeeda ama saygeeda jaceylkeeda oo lamaanaheeda oo xiriirka jaceylka la dhaxeeyay markii khilaaf uu soo dhex galay ay sidaas ku kala tageen ay ayadana ilmada cashan weysay ay bartaasi TikTok aad ugu dhex oysay ilmo aad u badan ee markay ilmaysay dad TikTok live la soo koray ay isku dayayaan inay aamusiyaan ay leedahay cidda idil qofna uu qolkeyga iigu soo galin maadaama jaceylkeeda uu ka tagay jaceylkeeda oo codad sirsir ah laga helay iyo codad cadeen oo lagu eedeeyay in $7,000 lacag gaaraysa inuu Amish uu ka qaatay jaceylkeeda oo soo hadlay Amish oo sheegay in uu lacag $7,000 Amish uunan ka qaadanin ay rajeynayay in ay isku aroosaan ama ay guurkooda ay lacagtaasi meel u dhiganayeen laakiin markii xiriirkooda uu khilaaf soo dhex galay uu cod laga helay ama cadeen uu dadka baraha bulshada ee Soomaalida idil uu u cadeeyay in lacagtii $7,000 uu Amish farta ka saaray Amishna uu ka haajiray uu ka tagay uu hadda gabar kale cusub helay arintaas oo Amish u dulqaado weysay ay oysay ay ilmeysay ay jacayl dambe ama xiriir dambe inaysan sameyneynin muuqaalka sida hordhaca ka soo aragtay daawade Amish in ay leedahay mar dambe qof dambe kuma kalsoonaan dooni nin rag dambena kalsooni ma gashan dooni maanta ayay igu dhacday in uu gabar kale iga aado ay aad u ilmeynaysa gabadha hadda ay qalbi jabsan tahay ay TikTok-geedu idil muuqaalo ilmo ayadoo oynaysa ay iska soo duubtay snapka dadka baraha bulshada idilna hadda ay Amish garab taagan yihiin qaarkoodna markay live-ka ayadoo ka dhex oynaysa ay arkeen si walba ay isku dayeen in ay aamusiyaan laakiin ayadii qalbiga ay ka jabtay maadaama qofkii ay jecleed ay waasay uu haddana gabar kale ka doorbiday uu ka raacay muuqaalkeeda ayaan kula wadaagi doonaa ayadoo aad u ilmeynaysa gabadha fadlan wixii fikirkaaga commentiga noola wadaag soo dhawow daawade weligay qof ma dulminin weligay qof wax ma ku dhihin why